وحير واحد رادي سادات حق دونيسو دين لي هذا الإسلام كتاب كود وقرآن نبي كود ومحمد مركي عبادة السنة يانا ويقيليان بير الله أكبر بيدام بير نمن كاس رادي حبك عبادة السنة dhulkay madaxa saaraan buu sujuuda aniga darbiga saan lay marta iyagu dhulkay tagaan buu nimankaas xaqayst ma u rumaysan tahay buu adiguna xaqiinaha maxaa u raaci weyday aniga hay faragelin buu niyo maxaa u raaci waxba kaama gelin soo xaq ma doonaysid ha islaam raadi intii baan qortay buu yiri Allahu akbar Qur'aan Muhammad Muslim afartii shay oo jabka soo gashtay بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن ما أنت إن شاء الله تعالى لبا أرمو لبا قصة يرير مهمة أو كسابسا كيف يهدي الله من يشاء سبحانه وتعالى iga dhageysta una dulqaata daqiiqada yar ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu noogu sheegay inna calayna lalhudaa wa inna lanaa lalaakhirata waaluulaa yacnii hanuunka dushannadu ahaaday annagaa ciddaa raba hanuuninna aakhiro iyo adduunkana annagaa iska leh meel kale alla wuxuu yidhi yahdi allaahu man yashaa yacnii ilaahay kii uu doon u hanuuniyaa آيات كلا ويهدي إليه من ينيب يعني إلهي سبحانه وتعالى هداية سيسكله قفكي الربا أيها نونياكي والربا وباضيه هو العليم القدير قصير ومركا لنقرابانا يغشكي أو مريكي جوغي أيانا ذكي غشكيني هذا كور وأنا كالنا رجيني وهوري لكن هذا وحن رواسفي عنا إلى دقيستان وقصة عبر قادة شله لمن اعتبر qofkii ku cibri qaadanay ninka odaga isagii baa ii waramay macnaa sanad waxa weeye saxiixa qofkii ay ku dhacday qudhiisi baa ii waramay waana laga yaabaa isaga laftigiisu waa nolol baan ku ogaa khadka inuu ka daawadaa dhici karta waxay ka dhacday arrintaas New York waa magaalo ku taal Mareykanka magaalo weyna wuxuu ka shaqaynayay meesha ugu weyn telefoonada caalamka kala hagta oo loo yaqaan AT&T waa telefoonno waa ganacsi waa shirkadaha leh waad garanaysaan shirkadahaasuu ka shaqaynaya marka dad badan ajaaniba ka shaqeeya Soomaali iyo Carab iyo Eeshiyaan iyo Yurubiyaan iyo ummado badan nin marka waxa ila shaqaynayay islaamnimada aad ugu fiican oo Latino ma taqaan dadka Latin America ka yimid Uruguay Argentina El Salvador Panama wadamada Peru kuwa ka yimid ayaa Latino la dhahaa afka Isbaanishka ku hadla nin ahba wuxuu u tukanayaa salaadihiisa waad yaabaysaa mar alla markii waqtiga la gaaro cidna ugama haybaysto adkaartiisa cibaadadiisa kala iska arag Soomaalida iyo Carabta joogta waa ka fiican ninkii maanta ma la sheekaystay niyow xagee ka timid markaasuu yiri San Salvador iyo El Salvador waa Latin America meeshaas islaamku maanan maqline xataa ducaad muslimiin oo tagay maanan maqale سي حالك أغنيو سيكو إسلامت هدان كو شيء يري مرة ما يستنسد يعني وحيابا الله يقانوا impossible أما incredible وحيابا إني سندعي كين دتك قار موديان impossible دتك قار يرادان سيدال كل هذا إنا إسلامان كو شيء يابير وحنا أبي دروغيست دتك كان دروغادا كشغيست ودمدا waxa caan ku tahay Colombia iyo Panama iyo dروغادا baashan la isku duro qaarna sanka laga qaato loo yaqaan heroin iyo cocaine iyo brown sugar mid la yiraahdo xashiishka waxaas caan ku yihiin dad aad u duloobay waa dadka Latiniga loo yaqaan xagga daroogada iyo tumashada marka daroogiistan ahaa buu go'ay dawladda soo xirtay xabsigii waxaan la soo galay nin Yuhuud badan baa degan dhulkaas oo waagii hore Yurub ka cararay iyo qaar bariga Afrika bariga jasiirada Carab ka cararay ayaa degan yuhuudku laakiin isma bedelo diin kale ma qaato luqadda waa bedel ma durabo luqad kale uu ku hadlaya laakiin yuhuudnimadu ma bedelanto waa cajiib niman aad ugu dhagan weeye baashooda
nin yahuudiya marka xabsiga igula jiro yidhi iyo dad fara badan oo kiristaana dadka kiristaanka waa iska tumanayaan waa heesayaan maanta o dhan indha isku qaqabanayaan cibaadadeenna taas waa u dhaannay laakiin yahuudigan khushuuca iyo tadallulka iyo isdullaynta ka muuqata waad yaabaysaa yahuudiga intuu u dhowa kitaab uu la soo baxaya jeebka ugu jira waa buug tawraa oo laakiin la beddelay waa munxarifa ayuu soo qaadanayaa ma cayaarayo ma kaftamayo khushuuc iyo oohin buu ku jiraa madaxuusaa u gundhinayaa buu yidhi ninkii cibaadadiisaan u bogay buu yidhi marka nin waxaan ku yidhi adiga maxaa tahay markaasuu yidhi juu baan juu waxaa la yidhaha yuhuudda afka ingiliishka lagu yidhahdaa markaasaa diintaada maxaa waayu yidhi kiristaan ma tiid ma yidhi kiristaan maaha buu yidhi judaism duu la yidhahdaa rumaysanta diinta yuhuudnimada niyo diintaada waa fiicantahay inaan galaan rabaabaa yidhi niyo ma geli kartid buu yidhi iska dhaaf waan yaabay buu yidhi waa haddana cibaadadiisu iska wataa kuwan kale waa batalaqtanaysa markay rabaan axad oo kale iyo intay isu yimaadaanoo keeg la samaysto ciise loo yeero saliib lagu sawiro meesha yaa lagu haynayaa buu yidhi ninkan laakiin waxaas kuma jiro ilin baaba ka socotaba waxaan fahmi yidhi naga diin fiican yahay waxaan ku yidhi niyow diintaada waana dhaantaa annaga taan iska tumanaynaaye bataash iyo baashaal baan ku jirnaaye middaadaan rabaa niyo ma geli kartid buu yidhi maxaa ii diidaa yidhi yuhuudi ma tiid buu yidhi adiga bahal dhalashada ku xihan weeye middaan oo see dhalasho gaarayso ilaahay ma caabusaa ma ilaah baa dad gaara caabudeenoo ummadda kala diiday waa iga aamusay buu yidhi haddana muddaan jooga ninkii waan fiiriyaa marna isbaanish buu ku ducaysanaya marna kitaabka tawraa buu akhrinayaa oo af cibraanigii buu akhrinayaa niyo waxaana dhegaysto markii dambe aniga xaqdoon baanahay kaftan iguma jiro meesha adiga waxaad haysatana xaq baan u arkaa niyo inaan raacaan rabaa dhegaysto adiga ma xaq baa rabtaa mase aniga inay raacdaan rabtaa markaasuu yidhi maya xaq baan rabaa aniga islaam ma maqashay buu yidhi islaam weligee ma maqal buu yidhi qur'aan ma maqasho yidhi qur'aan markaasuu no I never hear weligee ma maqal maxamed ma maqash weligee ma maqal buu yidhi waana suurtagal waddamadaas koonfurta latin america oo dhan faaruq waa kiniisado iyo dad iska tunta iyo daroodaa dilatayba meel dacwadu xoog ku leedahay maaha oo banama iyo marka la soo gaaro waqooyiga abaroone koonfurtu waaba eber iyada ninkii garanaya aad u fiiri boqolkiiba hal islaam lagama helaya xataa hal 0.5 muslim lagama helaya maba laga yaqaanba islaam marka niyo islaam ma aqaano yidhi wuxuu yidhi waxaad raadisay haddaad xaq doonayso diin la yidhaahdo islaam kitaabkoodu waa qur'aan nebigoodu waa muxamed markay cibaadaysanayaanna way qayliyaan buu yidhi allaahu akbar bay dhahaan buu yidhi nimankaas raadi habkay u cibaadaystaanna dhulkay madaxa saaraan buu yidhi sujuudda aniga inaan derbiga saan lahay maarta iyagoo dhulkay tagaan buu yidhi nimankaasa xaq haysta ma u rumaysan tahay buu yidhi adigu inay xaq yihin maxaa u raaci weyde aniga hay faragelin buu yidhi niyo maxaa u raaci weyde waxba kaama geline soo xaq ma doonaysid islaam raadi intii baan qortay buu yidhi allaahu akbar qur'aan muxamed muslim afartii shay oo jeebka soo gashtay xabsigii waa dhow ka soo baxa iskaba joog mudduu joogay waddamo kaluu aaday waa iska warwareegi jire ayaantii dambe wuxuu tegey waddan masaajid ku yaal oon u malaynaya maraykanka ama soo gala ama mexico meelahaasu yimi asagoo suuqa dhex maraya iyo wuxuu maqlay allaahu akbar waa sannado kadib war tansoo tii laguu sheegayey ma aha waraaqdiisii buu raadiyey wuu soo bixiyey allaahu akbar wuu soo orday dadkiioo tukanayuu fiiri mase wejiga dhulka saarayaan oo sujuudayaanba bil waatan diintii laguu sheegay waa soo baxay imaamkiibu iska hor istaagay ma garanaya de imaam la hor istaagay iyo inaan su-aalku weydiiyaan rabaabu iska leeyahy nin tukanaya waxba kama oga markii salaada la dhameeya le adiga maxaad noo dhibaysaa maxaad dadka u qasaysaa markaasuu yidhi I just ask you one question let me su-aal iyo ogolo inaan ku weydiiyo iweydii buu yidhi markaasuu yidhi diintiina magaceed halkaan u fiirinaya markaasuu yidhi islaam dadka haystana muslimiin nebigooda magaciis moxamed waraaqdii buu wataa
okay buu yidhi ii sheeg noobelkiina ama kitaabkiina aad ilaalisaan ood u taqaanaan the holy book of yours yacni kitaabkiina barakaysan maxaa la dhahaa qur'aan diintaanaan galaan rabaa buu yidhi wax kaloo ma soo jeedo ninka uu yaabay imaamka war adiga su'aalaad i weydiisee diintaanaan galaan rabaa maxaa waaya layidhi sheekadii uga sheekeeyey nin yuhuudiya dhowr sano ka hor isoo tilmaamay buu yidhi calaamadahaas diintaad ku aragteen xaq weeyuu yidhi xaq inaad tihiinna waxaan ku gartay buu yidhi waa sujuudaysaan dhulkaa wejiga ku haysaan waxaanad caabudaysaan oo keliya allah kii caalamka o dhan iska lahaa rasuulkiinnana waa moxamed diintaas xaq waayuu yidhi nin yuhuudiya soo tilmaamay waan rabaa ayadaan rabaa allahu akbar islaamku waa xaq waa yuhuudi baa tilmaamaya ninkii waa yaabay dadkii kaleo muslimiinta buu isugu yeedhay arrintii buu yidhi ka sheeke wuu ka sheekeeyey nin walba waxaa la yidhi marka waad hanuuntay hidaayada ilaahay wuxuu kugu soo dhiibay mid gaal ah fiir adiga waa yuhuudi waa malcuun xaqa waa yaqaanaa yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday carruurtooda u yaqaanaan bay xaqa u yaqaanaan laakiin inuu raaco ma rabo ninkan markuu muddo dhibay ayuu isaga sii jeedrooniyo diinta xaqa wataasa raadsu yidhi ninkii daaci buu noqday waa soo baxay hooyadii iyo aabbihii oo iska kufaar ah dhimatay buu u yimid islaamkiibuu u bandhigay waa qaateen qaraabo dhan buu u bandhigay waa qaateen ameerika u soo wareegay ganacsaduu noqday hadda shaquu ku jiraa saan daaciyaan ku ahay buu yidhi qur'aankana intaasoo jus baan aqaanaa isbaanish baana ku fasirayaa buu yidhi waa daaci halka arrin uga dan leeyahay marka dad badan baa islaama oo ilaahay hidaayadda cid walba ugu soo dhiibay cidduu rabo laakiin yuhuudi baa soo tilmaamay bal ka warrama waa sheeko ama qiso reality ah ninkii ii sheega waa la yaqaanaa macruuf waaye qaraabaanna ee ameerika ka shaqaynaya anaa la yaabay waa naga wada cibaado fiican yahay buur kulligeen waxaa ilaahay mahadiisa awliya tuug ma yaqaan jiilaani buusan aqoon uways buusan aqoon sheekh nuur buusan aqoon xeerka tolkuusan aqoon islaamkii buu fahmay toos nebi maxamed inuu raaco ilaahayna rumeeyo islaamnimadii dhabtahayd biyurka ahayd buu qaatay haddii shiica ku soo hormari lahayd ka war shiicuu noqon lahaa markaasuu cali abubakar iyo cumar lacnadi lahaa haddii qabuuriyin ku soo hormari lahaana markuu ilaahayna caabudo jiilaanina u yeehan lahaa laakiin maya ilaahay baa toos islaama dhaba siiyey daalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa laakiin musiibo waxay ahaan lahayd ciise inaad caabuddo ka guur oo jiilaan inaad caabuddo tag waa kud ka guur oo qanjo u guur qiso labaadoo ka cajiibsan oo aniga aan la kulmay marka taas ninkii la kulmay baa ii sheegay anigu ninkii mubaasharka ninkaas la kulmay ma ahay anu ameerika ma tegin laakiin middan waxay ka dhacday johannesburg anaa la kulmay 97 wallaahina xaqiiq waay waxaan wejigeena kaga raba male inaan idiin sheego laakiin waa qiso dhaba waxaan la kulmay maalin baa jimco waxaa laygu casuumay masaajid salafiyadu ku leeyihiin meel loo yaqaano mayfiya salafiyada markaan leeyahay dadka salafiyiinta dhabtaa maaha jadiidyada dad ilaahay waxidoo qabuuriinta diiday baa xagga jooga oon is urursannay kala nooc ahaa hindi soomaali carab caddaan aljeriyaan inta diiddayna suufiyada ka mid noqoto masaajid baan lahaan jirnay anaa marka khudba laygu soo qoro khudbada ingiliish waxay ku baxaysaa carabi nin qaasim la yidhaahdo caddaana dhex fadhiya marka caddaanka sood afrikaanku ma islaamaan waa dadkii waddanka gumaysan jiray islaamka badanaa waxaa qaata dadka madow iyo hindi asal ahaan islaam soo ahaan jiray oo isku dhex jira qaar suufiyaala qaar iska ebera qaar iska tumanaya malaakimu islaam iska sheegta ama caddaanku maya puwar baa looga yaqaana meeshaas niman kibir badan waay dhaqaalo badanna haysta ummaddaanna weligood soo gumaysanayey xilligaasna waa 97 waxaaba noolba mandela wakhtigoodii waay weli awooddoodii way jirtay hadda si fiican baa madowga awood u yeeshee ninkii qaasim baa la yidhahda markaa khudbadii dhammeeyey khamiis kafee wataa wiil yarow dhalay buu gacanta wataa yuu gacanta hayaa markaa khudbadii dhammeeyey oo adhow aan muxaadaradii ku dara tacliiqii sameeyey oon issalaamaynu isalaamay markaasaan ku yidhi waxaad u eg tahay nin غريب waxaa meesha fadhiya carab soomaali hindi kalar kuleeya kalar ma taqaan waa asian malaysiyaanka asalkooda ka soo jeedaan ayaa fadhiya dadkaasoo islaamnimada isu keentay oo diiday inay qabuuriinta la cibaadaystaan meesha qabuuriin baa saan u dhooban qabri laga ilbaxay oo
aad waxaa u dhisan oo marmar baa ku xihan oo xargaa ugu xihan waa kuwan aan ciid cunayn un kuwan ciidday cunaane kuwani turaab bay la soo baxaanoo ciid bay qastaan oo qurquriyaan kuwaas ciid shaqa kumale marmar baa meesha u saaran catar buu ismarmarinaya catarkiibuu qabriga marmarinaya isna waa ismarmarinaya tabarrug buu ku dhigi qabriguu ka barakaysanaya ismarmarinaya waa suufiyadooda marka dadkan hal guri oo wax u dhigma hal boos wax u dhigma masaajid waa meesha nin baa iska lahaa hindi ah oo salafiya ninka ilaahay dartii gurigii masaajid uga dhigay intii suufiye la aadi lahaa war halkan ku cibaadaysto dhan soomaalida markaa ku yarna ninkii waxaan ku yidhi niyow nin caddaana marka kuma jira meesha keligiisaa ku jira waa pure white waa dadka caddaanka loo yaqaano poor baa looga yaqaan waddankaas ee asalkooda holandiiska ahaa ee boqolaal sano gumaysanaya waad garanaysaa waddankan madow iyo caddaan baa isu gumaysan jireen waxaan ku yidhi magacaa wuxuu yidhi qaasim baa la yidhaahdaa waxaan ku yidhi nin caddaanoo weli islaama kuma arag waddankan dhowr sanaan joogaa markaas runtaa waayu dha caddaan kuma islaamaan waxaan idhi sababta habkaad u islaamta ma iiga sheekayn kartaa okay buu yidhi kursi buu soo qaatay masaajidkan gees ka fadhiisan wiilkiis yarkaana waa fadhiistay nin kale oo hindi oo saaxiibkeena asna muslimin oo soo fadhiistay qiso cajiib uu iga sheekeeyey adinkana aan raba inaad ii soo gudbiyo wuxuu yidhi aniga nin baan saaxiib lahaan jiray la shaqayn jiray ninkaasu waa hindi muslim suufiya muxuu kaga wadaa yacni muslimnimada ma sheegtaan kiristaan laakiin suufi buu ahaa ninkii meel baan ka wada shaqayn jirnay saasaan filaya igu yidhi hadiyad buu ii keenay maalin dambe kitaab qur'aana ayuu hadiyadahaan iigu keenay wuxuu yidhi diinteennaan wax badan kaala hadlay waad iga diidday bal soo fiiri qur'aankan maxaad ii keentay baan yidhi qur'aan ba kitaabkii qur'aanka oo dee ingiliish lagu fasiray culummaa ka shaqaysay boggaanna waxaa ku yaalla aayadihii boggaanna luqaddii lagu fasiray gurigaygaan la tegey buu yidhi marka dhinac baadari baan ka hay dhinacna ganacsadaan ka hay waa baadari kiniisaduu maamulaa ninkani nin markaas aniga aad laba goor iga da'weyn waay baadari kiniisadahayo waay wuxuu yidhi marka waxaan maalinba habeenba waxaan akhrinayey bog iyo labo saddex afar waxaa iga codsaday ninkaasuu yidhi markaad akhrinayso soo tahiri soo qubayso adoo nadiifa imow akhri ballantii waan ka qaadayey buu yidhi waan fulinayey laakiin islaam ma ahayn maalinba meel baan soo saaraa suuratu maryama iyo aali cimraan iyo aad ii ta'hiiriyu yidhi waa suuradihii nebi ciise iyo hooyadii iyo sidii nebi ciise ku calool galay iyo sida uu ku dhashay ka hadlaysa waay nin nasraaniya oo diintiisa daacad ka ah ma jiro ilaa markuu arko ina mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun ta'hiir bay ku reebaysaa ama markuu dhalanayey oo uu hadlayba qur'aanka keliya ku taallaa bale markaas injiilna kuma taal zabuurna kuma taal kitaab kale ku taalla male nebi ciise markuu hadlay yacni mucjizooyinkiisa waaweyn waxay ku taallaa qur'aan wuxuu yidhi innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون نكا عن مسلم كاين نبي عيسى كتحنا لا يهود نبي عيسى ويعي ذا يهو يذيبه لكن قرآن كوا أمانية يرانتي إنه كهذلي هو يذي إن أنا دم بلهين إن إلهي وحيودي oo malaa'igtu u timid oo lagu afuufay nebi ciise oo ay dhashay nebi ciise oo uu yahay kelimatu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu ruux ilaahay inuu yahay arrintii baan u bogay buu yidhi marka wuxuu aan gartay buu yidhi diinkaan inuu xaq yahay habeen barkii baan qiray buu yidhi gurigayga anoo jooga af ingiliish buu ku leeyahay ma yaqaan af carabi kuma dhihi karo I bear witness there is no God but one the creator of the world and I bear witness The Prophet Muhammad is a messenger of Allah. waxaan qirayaa way ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah muslim baan noqday baan habeen barkii iri gurigaygan go'aan ku qaato yidhi subaxiiba kiniisadii baan taa imid baa albaabada isugu laabay dadkiina waxaan ku yidhi oo muslim baan noqday aniga muslim hal ilaah baan rumeeyey ciise waa addoon hooyadiina waa addoon laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah oo luqadeedaan ku yidhi waa laygu carooday waa laysoo tuuru yidhi waa isaga soo tegey
ganacsigiisu Johannesburg buu kula soo wareegay magaalo markaa yar inuu joogaan u malaynaya caasimadii buu yimid wuxuu rabaa diinkii inuu barto marka quraankii uu akhriyaa ingiliishkii uu faham ka qaatay bas waana ku islaamay oo caqiidada saliimka waa fahmay si loo tukado ma yaqaan si loo cibaadaysto quraankan loo akhriyo af carabiga uu ku qoran yahay loogu akhriyo ma yaqaan kulliyad baan mid bil asar film la yiraahdo kulliyad islaamiya laakiin yaa haysta mataqaan suufiya haysta kulliyadii baan ina muslima u sheegay oo si fiican baa la soo dhaweeyay qol baa la idajiyay nin cadaan oo muslima lama arko dhulkaas aad baa la soo dhaweeyay wali waxaan u sheegay baadari hore inaan ahaan jiray marka waxa weey waa sumcad waxay u arkeenba kulliyadooda sumcad weyn u soo hoyatay nin baadari soo ahaa oo soo islaamay iyaguna islaam ugu yeereen ba xataa ka dhigayaan ninkii meeshii waa cabaar joogay marka quraankii baa la baray isagu ma kala yaqaan suufi iyo shiica iyo warsamo guuleed iyo aadan faarax iyo waxaan sheegno ma kala yaqaan hal diin buu yaqaanaa oo islaam la yiraahdo markaasaa la baray xuruuftii carabiga la baray quraankii baa la baray dadkii buu ku dhex jiraa si uu tukanaya salaadii baa la baray waka laakiin shirki ma ogola maalintii dambe uu yiraahdo dhex fadhiya meeshii waxaa ka yimid waddanka India mise Pakistan nin awliyadooda ana masaajidkii fadhiyo kitaab haysta yuu soo galay ninkii markaasaa la yidhi maanta waxaa iman doona xaakim saab baa iman doona markaasaan xaakim saab muxuu yahay markaasuu yidhaan weli of allah weli baa imanaya maanta in la istaago waay taabashadiisu ilaah baa ajar nagu siinaya yaa anaa la itaa taaban jiriiro ilaah laygu dhowaan jiray asagaa soo haa sheekadan waa tiisii waay markaasuu what do you mean ilaah baa loogu dhowaadaa karaamaa lagu helaa tawasul baa la yiraahdaa okay biir marka waa shakiye biir maba aqaan suufi wax la yiraahdo laakiin quraankan soo arkay waxaan ma ogola hadhow soo galo nin baabuurta xataa laga dhilka roog baa loo dhigaya indhahan saar anaga masaajidka bartankeeda salooto loo dhigo salooto masaajidka bartankiisa baafna waa loo keeno uu weysaysanaya kaas asagu sheegaya maaha laakiin mid kale baafkaas markuu ku weysaysto biyuhu ku weysaystaa lagu dagaalamaya biyihii baa burush inta la geliya saa loo sayray biyihii weysadiisa waa cagaha ku dhaqday ayaga markaasa kii ee soo gaadhaba ismarmarinaya ninkaanu wixii buu arkay waxaana asagaa samayn jiray iyagu waa leeyihiin foox bay leeyihiin ay shidaan baal yaroo dabqaad ay leeyihiin tusbax bay leeyihiin madaxay gacanta ka saaraan qofku waxay yiraahdeen the name of Jesus you will be everything okay waxa lagu dul akhriyaa qofka magaca ciisaan kugu akhriyay karaama kugu soo dagaysa ajar baad helaysaa waa lagu cafine khuraafaadkaas asagoo ay yaqaanayba waa sheeko 40 sano ku soo shaqaysanay tiyo islaam laga dhigaa loo keenay marka waxaan ku yiri adiga maxaa tahay ninkii odaga markaasuu afkooda ayagu weydiiyay qadhi af hindi ku weydiiyay markaasaa wuxuu ku leeyahay ninkan maxaa tahay anaga ku jawaaba ninkan waa wali ilaahay baa leeyahay markaasuu how did you know see adiga ku ogaateen ilaahay waligiis inuu yahay ninkan waa maskax furan yahay caqligiisa dadkan iska hooganaya ma aha markaasaa saa lama yidhaahdo aamus hoos fiiri indhaha god war u kaadi yiri hoos fiiri indhaha god war maahan su'aal baan weydiiyey ninkan Soomaalidan oran waa wali of Allah haa ilaahay soo ansin qayb aanan arkayn ma haa waxyi miyaa ku soo dega markaasaa la yiri maya how did you know adinka say ku ogaateen wali ilaahay inuu yahay adiga laftigaaga ma sogteena wali taabi orya odagi oday markaasuu kurkursaday baagaab ka qaji kare afkoodu ku wuxuu leeyahay warkan iga wada camal waa loo yimid waxa la yiri please laguma buuqa awliyada markaasuu idaayay aniga xor baan ahay nin weyn oo idin imid baan ahay ifahamsii waxaad fahamteen maxaa la idin yiraahdaa adinka muslimiin baan naawde amba muslim baan ahay laakiin muslimkan quraanka ku soo arkay kan ma aha waxaan ku soo arkay quraanka muslim oranay aayada quraanka waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum ibarya waa idinka ajiibaya straight in ilaahay loo baryo ilaahayna adoomadiisa isaga kale yaqaan kan alla ka baqo muuminka huwa a'lam biman ittaqa quraankan soo arkay kaas waay kan maxaa waa yiraahdaa isku quraan soo manin haa yaa sheegay ninkan waliya la iga jawaab
ما مساج كلهم بس على سكوت ومر كذلك قاسم ما أنتوا نقول فرتله وتاجي مرك نينا وين جبي كران أجنبية معها ما حري كران ما عايرين كران وطن كاساك جاود وين جوابنا ذكر باب يوري يا كوش شاقي إن الولد هذيك هذيك يا عيدين شاقي إنه أولياء هذيك بيها قرقرنا يعني جزمر مرنا شاكذا كنيسة كوها أيوة ورانا هاوشان تان كنيسة دانية كوها أيوة يوري إسلام بان صوت دون لكن إذا كبيه الإمبير سان محمد الإسلام ما أنا بورصين كيسو حررت ولي مركب ورن وحي يرادن وحا إيمان دونانين وليه أركتين وجهي سكلية عبادة أجر بكيلته to see his face also عبادة وجهي سؤال أركابه إلهي كوكودا مدافع اسكنا فاك له وحي أورنجرين أنت الشيخ وقولي يا جاء وحلمي دي كتاب قرآن وقولي كوي الله كله ماشي أي قارن من كاس والله أرنت أنا شيء أنا مغلي سجوا يمشي كنتاس كتاب قرآن وقولي كوي الله أيو لمي دي أنا بقوم محاضرين قاسم سيدي بوقسوة تجمرك لكن محو صابرتي سيدي لو تكلها قرآن كيف فاتحة دور سورة ضد بصابرتي عربية دي بقرية صلاة أذكار تيدو برتي الحمد لله قرآن كاسي آخر سنكر إلا ميل انت أنا كصابرتي لكن محو سوق هذي وذكر لنا هايستان وحن راديو المساجد والبان سوق الله ما شو وصل يجيون إيه ورما إرادة ورجي بليف أبو ذا بروسروك بزروك بيجوا يقانن أولياء كسر جريت ولي وولي وين ومالها المجوجا ها مد انت حاجة كو أصلا متكلم حاجة جوجا متكلم أنا أوكي كيف وين ماشي هذا جو ولا وكتجات وعرادين يا إخوان ولي إله اللي هو دواني واجد أبو ولاد كمساجد كان ديسمبر كان جوجنو هندية أو دكتور وحوي دكتور هانشيا الأورنجي أدون نولي أنا الله حافظه أدون انتنا الله ونحرس شابير هانشيا وعن ذي شيء ودور لا تنسى نكور تضبي سياشن كم قال يجوا أفر لا تنسى نوا دكتور شابير هانشيا إس أركان واشاكستن مركزينية مسلم باتع عدانة هابي يرها لكن كل يبقى مسلم صح وهو مركزينية ها مسلمين تبدين هذا ما كوا بزروق الرميزان باتعبير كوا أولياء عاودة مياتها وكوضا مركز سنين كان وقرت وانين هندية أقوان له سلفية مصرية إلى الشام تجي وحصابرتي قعنتو صاغبت وحدا سيكو وقاتين خلدين إيجا أنت أنا بران بان قرآن كوقادير في هذا أنت أنا إيجا بران أيام فهم القرآن كواحد يقول يريو إلهي التوصل اللي عابده والناس أفكار بالله توحيد ما هو فهمي أنا إيجا بران سيدا أوجد بان مركا إيه أنا يمدو هراس كقرن سأوجد مركا كم قلدم هذا ما يقع قاضون لور برادبا كل جيبه عبادة كل جيبه الله توجا يوحنا رادين يا ابن مسلم أسكتين ناي أو إلهي كل يعبدون بصروا كدرين شكل يعني أن وذا نصارى كريستانك النبي عيسى إله لا عابدي أنا هو وكيلك عيسى عنها تيو كلاي كان بي إلا أنا إله اللي يقول وان جرير أسأل حنقلية كيدن بابا أو إيمانية سكوك الغفران بالإرادة مدحو صلاحية كنيني وأفكو قلنية العقب كريمانية كسو حوغا يروحوا قطع دادنا يا بهال عترة كنيسة الشيء كذا نقول شيء يجرنا نوك كان بير نقاس وحي يراو يقاننا وحبا وترتي قرآن كي الله كان وفهمنا وحبا وتري صباح بيرو وصاوضي نيو وحي رانيقا بزروك وحلي را ما قال مسلم بانا وحان رميسنا إلهي كليين لعابدو توس إن لو عابدو عد لو مرانا أنا جرين وأنا أسلمنا إلهي هرتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله أنا أوكي أنا الله كبقية وليا قفنا قف وقوم دواد إلهي واستمنا وتاسير الإسلام كأركانه this is the real Islam وكم بالإسلام كرسمي يجي ماله جو مركز مساجد كي كان مساجد مركز أنا إيمان أنا مال مسافر وين سدح تضباط وكنت كان يابا مركز أنا كل شيء كسر ماش قاسم بالإرادة عدة دواء إسلام تبير ويل كيرا واكنا مسلم وقرابة كلا واكنا تقني الحمد لله رب العالمين بيري إلهي يفهم سي قرآن أنت نسوفي فاهم بير إلهي يفهم سي قرآن هذا يكور مر لا كورم بير نكان كمان الله دقيان دين مودي الهين بير لكن إلهي بقى محل لبدا قصة ولا قصة نكي قاسم سي أسكم على السلاميني وطن كيبو زوج ردون نولي هنا إلهي حافظه هذول انتنا الله ونحرست وحنكو ذا وحنكو أرارتي يهدي من يشاء ويضل من يشاء والله كي دونو هنونيا كي دونو
ayuu baadiyeeyaa meel aan laga filayn in laga hanuuna qof ku hanuunaya meel la isleeyahay xaqii baa dhoobanna dad baa xaqa diidaya imise meelaha u jiraan kuwan awliyada caabudaya soo maalin walba ma maqlaan ilaah looma sharig yeeli karo haa nag waa diidan yihiin qaaradda shanaad baa ninka islaami ilaahay buu waxidayaa mana yaqaana jiilaaniye madhabna ma yaqaan shaafici walaa maaliki walaa xambali muslim ma ahan bal fiiriya qiso saddexaad ma idinkugu daraa ma soo joojiya mise waa daahnay qiso gaabanoo saddexaad sheekh ma daash qisadan madhabtay ka hadlaysaa waxaa ka hadlaya kitaabka la yidhaha sifatu salaati nabiy albani baa ka hadlaya madaahibtay ka hadlaysaa dadka madaahibta ku ta'asuray nin warshad lahaa weyn oo jabaan oo sanam caabudaa jir laakiin jabaaniisa waddanka waa jabaan nimanka shaqaalihiisa waxaa ka mida niman muslimiin oo qaarna hindi yahay shaaficiyana xudunta waa taqaan soomaalida way taqaanaa shaaficiyadu labadoodii baa jooga marka ninkan hindiga dadkan muslimiinta asaga ma kala yaqaan ninkan gaalkan jabaaniiska shaqadooda u bogay ammaanadooda u bogay aadaabtooda u bogay dadka kale ka fiican yihiin nimanyo diintiina iga warrama markaasa tawxiidka loo sharax diinta islaamka loo sharaxay ilaahay wixidaaniisa loo sheegay sanam inuu caabudaya loo sheegay allah u toobadkeen baa la yidhi nebiga xaqa ee allah ka soo saaray arabian peninsula jaziira alcarab moxamed baa la yidhahdaa rumee sala allahu alay wasalam islaamkii buu qaata waa ku farxay oo soo dhoweeyey dhagax waaye waxaan ka guur baa la yidhi waa ka guuray ninkaas muxuu u baahnaa keliya in diintii la baro qur'aan iyo xadiid ma madhab buu u baahan yahay maya madaahibta dadkaas say ugu dhegan yihin baan kuu sheegi madhabka diintoo kale ka dhigeen qofkaan madhab lahayna gaal bay u yaqaanaanba ama madhabkiisaan ku dheganayn dadka eesheenka soomaalida qaar ba masaa ugu dhegan madhabka moodaya waxa ilaahay samada ka soo dejiyey ninkii habeennimadii 3 habeen 4 habeen markuu joogay oo qur'aankii la barbarayo ayaa niman odayaal u soo duseen habeenkii hindidii waa waxay dhaheen waxaan kuugu yeeraynaa madhabka xanafiyada axnaafta markaasuu yidhi waa maxay waxaas madhabka qaaday dheheen muxuu yidhi ma islaam kalaa waa soo islaamee mid kale miya markaasaa le mada waa madhab iga dhaadhiciyu yidhi ma islaam yaroo kii weynaa ku dhex jiraa see looga dhaadhicina anigu ma islaamino haa wixii layga rabo ma la imid haa dhaafu yidhi marka ma fahmin bu waxaa wadaan maxaa la yidhaha madhab ku dhegiyo qaado iyo the best madhab of the world madhabka adduunka ugu fiican war madhab ma fahmin biro islaamnimadii ma haystaa haa idhaafe waa ka soo tageen 2 habeen kadib kuwii kale indonesiyaanka aadaya shaaficiya iyo hirgelinayna ninkaan dhulkaan jooga hadduu shaafici noqdo madhabka shaaficiga dacwadiisa dhulkaan ninkaan islaam buu noqdo waddanka islaam in loogu yeero bisoo kuma filna ilaa dad badana qaraabadiisa islaami lahaaye fiir adiga madaahibta masiibada ay keenta waa uu ka hadlaya albani raximahullah habeenkii dambe haddana waxa u gurguurtay u dhuuntay shaaficiyadii markaasay la hadleen wuu soo dhoweeyey waxaan kugu yeeraynaa kuwa kale marka warkooda umuu sheegin wuu ka aamus madhabka ugu fiican adduunka haye maxaa ii wadaan yidhi madhabka shaaficiyada waxaa ii sheegtaanu dhahay aniga waxaad iigu yeerteen hal ilaahay inaan caabudo oo aan asnaamtii ka tago maxamed rasuul ahaan inaan u rumeeyo sala allahu alay wasalam qur'aanka kitaab ahaan inaan u raaco islaam kaloo yaroon sii dhex gelaya miyaa haysaan oo shaafici la yidhaahdo markaasalime waa madhab fiqiya habka loo cibaadaysanayo salaadaada tahaaradaada soonkaagu habaynaya arrintaas maxamed ma dhammaystirin miyaa buu yidhi ma ayadoo qabyaa uu ka tegey gadaal miyaa laga habeeyey ma uu dhammaystiray isqaadsiyo dhaa marka ayadoo dhammaystir hadduu ka tegey maxaa looga baahan yahay kuwan waa madaxa gadaal baa loo kurkuursaday dhegaystuura nimayow aniga islaam baa laygu yeero waan haystaan ee dhaaf haddii kale ma fahmin arrintan wuu ka shakiyey diintoodii wuu ka shakiyey waxaan moodaya hal islaam in la haystee 3 baa haysataa budha islaamka weyn axnaaf gaar ah shaaficiye gaar ah kuwo kaloo sii gaara waa arki doonaa aniga marka wuxuu yidhi awal waxaan moodaya hal diin inaan qaadanaye 3 diinoo diyaaru maahay taydii horaan ku noqday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ninkaas maxaa lagu sabab raalli ahaadu yidhi nimayo jabaankaygii iyo caqiidada jabaaniiska iyo asnaamtii shiintooga la yidhahdaan ku noqday buu yidhi mar dambena waxba idinka qaadan maayo maxaa yeelay kor baan idinka arkay hoos islaamnimo fara badan baa ka jirta yidhi oo aan tii rasmi ahayn nimankaasu see u galeen ninkan warba haddii madhab kala hadlayaan nin dhismay oo diin ahaan dhismay oo islaamiyada dhismay kadib baa fiqigi madhab loo sheegi karaa
shaluba soo islaamo waa ku faraxsan yahay inuu ilaahay waxidayo tawxiidkii lagala hadaliyo sunnada nabiga taariikhda nabiga ma loo akhriyo masiibadaasna madaahibtaa wadatay oo albaani aad uga hadlay ninkaasu ummad dhanba waa islaamin lahaa isagina islaam ku toosnaan lahaa waxaa cayriyey waa maxay xanafi qaado may waa loo soo dhuuntay nin ingiriisa islaam ugu yeerta maanta wuu qaatay maxaa dhihi marka waa islaamee ma shaafici noqaa dhihi haddana maxay tahay uu ku leeyahay shaaficiga sheegaysa xambeli oo maa maxay xambeli waa madhab ma islaamnimadii ka hor imanaya maya waa masaa'il fiqiya haa laakiin fiqigeeda ha ii jooga islaam ma haysta haa leave me alone idhaaf waxyaabaha uu ka digayay ka mid ahayd imaamkii albani raximah allahu tacaala meesha madaahibtu lagu ta'afuray ee dadka gaarsiisay ilaa buu yidhi aniga aabbahay walaashay uu nin u diiday shaaficinimo darteed nin dariskeenna soo doontay buu yidhi gabadhii walaashay ahayd magaalada shaam buu joogay markaas dimashq wuxuu yidhi nicma rajul anta nin fiican baad ahaan lahayd lowlaa annaka shaaficiy laakiin shaafici baa taabi gabadheeda kuma siin karo meeshay gaartay ka warran madaahibta masiibo waa sheekh marka in madhabkii laga dhiga diin oo lagu dheganaado annaga waxaana loo diray qaala allahu qaala rasuulullahi madhabku waa masaa'il fiqa shiikan wuxuu ku toosan yahay qaadan waaba ka tegay darabta ilaahi axmed bin xambal ma soo dirin walaa imaam shaafici ma soo dirin walaa imaam maalik ma soo dirin waa culummadeenni ixtiraam leh madaahib iyo fiqi bay la yimaadeen fiqigoodu wixii uu ka waafaqo diintan qaadana ma fahmi waay haa waa ka tegay kana fiirin axmed bin xambal baa fiican show ma imaam maalik baa ila fiican show maxay dhib oo leeda inaad mid ku dheganaato diin ka dhigata yaa asal ka dhigay madaahibtu waa culummada fiqiga ra'yigoodii wey sunnada nebigaana ka weyn madhabka nebigu wuxuu yidhi manaha imaam shaafici oo odhanayaba haddii buu yidhi iskhilaafaan warkayga warka nebiga kayga tuura bal fiiri warkaas kayga derbiga ka tuura buu yidhi mid kale wuxuu yidhi imaam maalik idaa saxa alxadiid iyo abu xaniifa idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi xadiidku hadduu saxiix noqdo kaasaa ii madhaba maxaan tayda naftayda dadka uga digayaa marka in madaahibta iyo sunnada madaahibta la hormariyo waa dhanka madhabka caqiidadiina shirki baa meel walba degay shirki halkaa in looga istaago waay basaruugkii south africa aan ka sheegaynay oo rufeyciyaa noo jooga halkan basaruugkii aan sheegaynay oo jiilaaniyaa noo jooga ogaada haddii dad kale ajaanib ay ahaan lahaayeen waa qaylin lahayn laakiin soomaali waa qofka soomaaligaana badan waxaan dhahnaa shirki maaha wixiisu waa soomaali dhib ma leh marka waa khalad dhacay wey sheekh cabdiqaadir jiilaani waa addoon waliba shiikh daaci u ahaa oo madhabkii xambaliyada haystay culimmadii ducaadda qarnigii lixaad ee muslimiinta joogay waa laakiin ma loo yeehan karaa ma ilaahba jiilaani ow joogso ma dhihi karnaa meeshii looga yeero joogow jiilaani ma shirki ba mase ma aha akhyaara ii jawaaba shirki ma taha mase ma aha shirkigii saas ahaa inaan inkirno miya mase waa inaan ka aamusno mise waa ku gardarnaa maalin walba isha inaan farta ka geliyo ma ku saxsanahay allahu akbar hada huwa alislaam wajazaakum allahu khayran والله سبحانه وتعالى أعلم